iyadoo toddobaadkii ugu dambeysay hadalhaynta ugu badani ay ahayd muddo kordhinta la filayo in loo sameeyo xukuumadda madaxweyne Ziilaanyo ayaa maanta cuqaasha waxgaradka aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shir jaraa'id oo ay qabteen waxa ay kaga hadleen arrimahaas waxa hadaladoodii kamid ah sida tan culimada markaa dhigayso waxay leeyihiin qofku hadduu shaqeeyay ciid ilaahay uma ka dhigi kara war ma Saleemaan ilmayo waa shaqeeyay isleeyay ciid ka dhiga Saleemaan waxaan ku leeyahay in qandaraas qaata hadduu ka hore ku khasaaro ka dambe uu ka fakiraa wal qandaraaskii hore biyaad ka faa'iiday mise waad ku khasaartay bal dib xisaabtano waxaan leeyahay dalku meel wanaagsan buu marayaa ma aha wixii maantii joogay maanta ma joogaan ma aha in la isku dulbaayac mushtareeyo waxa weeyaan guurtida waxa leeyahay guurtidu ha ka baxdo saddex xisbi qaran dadkii dibadda inaga caawin jiray oo dhan madaxweynaha kubushika wixii la shaqaatay waxa looga baahan yahay inay maanta saxiixaan wixii la gaaray wixii aan inta ahayn ninka ka gudba isaga xalkeed heli inay tahay daaqada xidha inay tahay baynu aragnaa waxaanu aragnaa inay tahay daaqada xidha waxaanu leenahay oo aanu tala ku bixinaynaa in nabadgelyada Soomaaliya la ilaaliyo in cadow badan baa jira habeenkii dhaweyto wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegayay in xuduudaha Soomaaliya qayb ka mid ah ciidamo la soo dhigay sidaas maadaama taasi jirto hadii inaga gudaheena wax ka abuurmaan maxay difaaci karayna waxaanu leenahay Soomaaliya difaaceeda iyo nabadgelyadeedu waa muqadas haloo wada diyaar garoobo iyada dhexdeedana yaa wax laga abuurin wixii abaan ahaa ee meesha halkan lagu hayay madashan lagu hayay waa tilmaamay waa laga hadlay wax la og yahay bay noqotay wixii la ogaa ee lagu ballamay ee qaranku ku ballamay ee sharcigu ku ballamay ee guursigu ku ballantay ee Soomaaliland ku ballantay ninka ka raba halkii wixii la isku ogaa ee ka geedigeliya ee yiraahdo wax kale ku kordhiya oo u libaaxiyaya madasha ma waxbuu yeelan shacabku tar waxaan taageersanahay oo raacsanahay marka hore go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka iyo saddexda xisbi qaran iyo golaha wakiilada iyo madaxweynaha iyo qaramada Yurubta midaysan deeqda inaga caawiso doorashooyinka go'aankoodii kaasaanu raacsanahay oo waafaqsanahay oo taageersanahay waxaan raacinayaa ka wixii laga duwo cid wax ka duwaysa waa cid dalka fadqalan iyo xumaan kula jirta marka dadka waxa soo kiciya hadba shucuurta dalka taala sida ay tahay waxaan leeyahay dalkani wuxuu ku soo caanamaalay isu tanaasul iyo wada tashi kuma soo caanamaalin aniga talinaya iyo aniga iga go'da waxaan leeyahay madaxweynuhu laba jeer buu golayaasha ka hor hadlay oo uu yiri doorashaan diyaar maalin la igu darimay waqtigeega ma ka dhamaato laakiin se waxaan leeyahay gudoomiye Saleemaan warninku nin qaran weeye qaran baa doortay qoys adigu ha ka dhig qoys ha ka dhigin baan leeyahay qaran baa doortay waxaad arinta aad jeeb ku sidatay aad dibadda kala timi waa wax adiga ku kooban maalintii dhaweeyay aad xisbiyada la kulantay mucaaradka ah ee arinta in ay batala waxay ka qabaan ay aad ka wada tashateen shirkii jaraa'id ee ay joornaalka la hadlayay waa adiga diiday dareenkaasi wuxuu tilmaamayaa inaad ku qanacsanayn in dalku doorasho ka dhacdo oo wixii aad jeebkaaga ku sidatay aad meesha aad ka tiraado taasina wax laga yeelaya ma dalku sharci buu leeyahay commission baa la doortay commissionka waxa ansixiyay dastuurkaas shuruucda dalka u taala ayaa sameeyay waa in uu doorashada isagu qabto xisbiyada tartan geliyo cidii soo baxdana uu u dhaariyo oo ku dhawaaqo laakiin guurtidu shaqadan ma laha guurtida waxa loo doortay arrimaha nabadeynta qodob baa jira 42 leeyado iyo ka 43aad dalka hadii masiibo qaran ka dhacdo ama afa qaran ka dhacdo ama dagaal baahsan ka dhaco waxa weeyaan inuu guurtida go'aan ka gaadho oo muddada dalka kordhiso laakiin se commission magacaabay oo la tashaday xisbiyadii oo madaxweynihii la tashaday oo dadkii deeq bixiyaasha ah ee doorashooyinka naga caawin jiray la tashaday oo go'aan gaaray kiisi baa bedelaya wax ku suurto golinaysa maaha Abdullahi Maxamed Kaarshe Abdullahi Yazid Samla Yus TV Burco.